marka hore mas'uuliyiinta xisbiga waxaan leeyahay ayatullada macnaheedu waxa weeye wadaad waa tuqantuqsiga laga daayo waad nugu raagtay weeye macnaheedu laga daayo intaas waa kaftan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay labadan urur maanta inagu soo biiray gudoomiye wuxuu ahaa gudidii wada hadallada la bilowday halkan aan ku kulmi jiray gudidii ay wada shireen ay isdhaafsadeen ayaanu ahayn ilaahay maanta uu ka dhabeeyey labada odayna baashana waa awoogay dogoxna waa abtigay markaa nin dee hiil helay baan maanta ahay nin hiil wanaagsan helay waa laba nin oo siyaasadda kuma cusba wax badan bay siyaasadda ka soo shaqeeyeen waa waayo arag xog badan bay hayaan shaqada xisbiga niman aad u yaqaano weeye oo dee xisaabta bilowgooda ka soo qayb galay ururada bilowgooda ka soo qayb galay xisaabtana ahaa khibrad weyn oo nolosha ana wata oo gudiyada dibadba xilal ka soo qabtay oo soo arkay waxaan u sheegayaa in xisbigani waxa weeye xisbi furan waa la wada leeyahay waliba waxaan u baahanay taladiina iyo khibradiina ayaan aad ugu baahanahay hadalka badin maayo soo dhawaada aniga farxad gaar ah ay tahay maadaama gudidii wada hadallada la bilowday aanu ahayn waxaanu gudoomiye u ahaa ilaahay waa ka maanta miro dhaliyay waxayna ka raagtuun intuu gudoomiyuhu maanu suganay intuu soo noqonayo markaa hawshii kalena saasay ku dhammaatay iyana waxaan leeyahay soo dhawaada fikirkiina waliba aad loogu baahan yahay iyo taladiina iyo aqoontiina ilaahay idinkiina xisbiga wax weyn baa ka tari doontaan dalka badbaadadiisana hormuud baa ka noqon doontaan